aad baan idin salaamay eeliya asxaab waxaan doonayaa laba saddex eray inaan ka iraahdo arintii dawlad deegaanka ka soo yeedhay Mustafa Cagjar iyo tiimkiisii arintay ku kaceen ayaan doonayaa laba saddex eray inaan ka dhaho dawlad deegaanka horta dhulbahantay ogaadeen waxa ka dhaxeeya waxaan birina goyn karin biyana mayri karin waxaan biyana dhiqi karin wayaan birina goyn karin ninkii ogina waa og yahay nacasna hadda loo sheegi maayo waxaan si aad uga xumahay oo galabtay ugu kalifay inaan live-ka soo galo laba mid baan rabaa inaan kala qaado waxaan rabaa eedda Mustafa Cagjar iyo xukuumaddiisu ay ku kacday aynu ognahay cidda ka dambaysa iyo cidda Mustafa ku shaqaysanaysa iyo ogaadeen inaynaan israacina laba ka aynu ka kala dhigno ogaadeen waa dad aanu walaalanahay waa dad aanu taariikh wadaagnahay waa dad alliance aanu leenahay waa dad wax badan naga dhaxeeyaan dhaqan ehelnimo dhan walba aan oran karaya daaroodka kale oo dhan waa siga sukeyn hadday tahay halgankii daraawisheed hadday tahay halgankii ONF iyagu ku jireen waa dad taariikh wadaag aanu nahay waxay la tahay sababta laascaanood Soomaaliland ku timid haddaan idin yara iftiimiyo dhalinyaradiina yaryar ee dhowray 20 jirada ee aan xogaalka ahayn ee da'dooduna aad u yareed markii laascaanood Soomaaliland qabsatay sababta Soomaaliland laascaanood ku timid haddaan idin yara taabto waxay ahayd deegaan dhulbahantee wiilka ogaadeen ee ONF ah ee yimaada lama dhiibi jirin lamana xiri jirin tuliimo sahay saanad intaba ONF deegaan dhulbahantee way ku haysatay mana saraawo Puntland isugu yeeray iyo Somaliland oo daahir yaala madaxweyne ka yahay iyo Puntland oo cadamuus madaxweyne ka yahay wuxuu sheegay in gacan ku haynta gobolka Sool sanaag yacayn deegaan dhulbahantee gacan ku haynta Puntland aanay gacanta ku hayn karaynin maadaama Itoobiya dhibaato badan ay kaga socoto oo ay gabood ka dhigteen ama ay ku soo dhuuntaan ay dhufaysu tahay ONF markaan saad leeyahay Puntland iyo Somaliland nimanka ogaadeen ee ONF ay yimaada sida ariga inta loo raro iyaga xana qaarkood karaatoon la geliyo ayaa la dhiibi jiray oo Itoobiya loo dhiibi jiray sababtaas cadamuus lagu yiri laascaanood wareeji gacanta kuma hayn kartid waxa noogu dhiibtaa daahir yaale iyo Somaliland horta Somaliland fiisankii ay laascaanood ku timid sababta ogaadeen ayay ahayd oo leeyahay ONF baa gabood ka dhigatay deegaan dhulbahantee laascaanood la isku malayn xabad kuma dhicin cidina kuma dhimanin saxiix iyo heshiis Itoobiya ay u kala qortay labada maamul ay ku timid Somaliland taasaan ka leeyahay halgankii daraawisheed ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan dhulbahanta kaalintii uu ka qaatay iyo meeshii uu ka istaagay waa la ogaa tolkay taalooyin badan oo sayidkii waa dhisteen oo jigjiga waa ka dhiseen Kismaayo waa ka dhisteen meelo badan waa ka taageen hal taalo oo daraawiisha meel kama dhisanin ogaadeen hal taalo oo Ismaaciil Mare hogaamiyihii labaad ee daraawiishada hal meel kama taagin kuma cil qabno intii aanu ka lahayn hadii tolkay noo qul waayo cuqdadna kuma qabno ciilo kuma qabno cunfina noguma aha laakiin was xasuusanayna khaladaadka ay galeen inay qayb ka tahay waxa ayaan daraa oraad uga xumahay istimada beesha dhulbahantee ama reerka dhulbahantee la yiraahdo aan ka dhashay oo dawlad deegaanka dega oo deegaanka ah inay shir ku qabsadeen jigjiga shirkaas oo laba sababoodba jigjiga loogu qabtay in dhulbahanta dawlad deegaanka yahayna way sababtay in magaalo daarood oo kablalax ay tahay in ogaadeen iyo dhulbahantee ay yihiin dad daaroodnimada ka sokow taariikh wadaag ah dhaqan wadaag ah daaroodka kale oo dhan isaga sokeeya taana way sababtay inay ku qabsadaan madaxweyne Mustafa Cagjar waxa laga saaray culays xagga Axmed Shide oo uu ka shaqaynayo Muuse Biixi waxa lagu yiri hadal shirkii dhulbahanta ku qabsaday jigjiga ka hadal madaxweynihii uu ka hadlay uu ku lahaan waayo wasiirkiisa baa ka hadlay waxay sheegeen wax cilaaqaadka Somaliland iyo dawlad deegaanka xumeynaya oo hadday shir tahay ama maxaan sheegay maamul inaan nina ku qabsan karin jigjiga kana soo horjeedaan wixii dhacay
arrintaasi waxay keentay kacdoon badan dadka qaabasi bay uga hadleen waa sababta aan leefka u soo galay aan u rabo in tolkay ugaadeen oo ah qabiil ballaaran tol ballaaran iyo Mustafa Cagjar iyo xukuumaddiisa aan laba u kala qaado ugaadeen waxa naga dhaxeeya mar kale waan ku celinayaa waxaan birina goyn karin biyana mayr karin xaalado badan oo aanu maanta marayno iyaga nooga soo horeeyay oo soo maray maalintii ay ku jireen garab baan u ahayn tol baan u ahayn gaashaan baan u ahayn cudud baan u ahayn maanta xaaladii ay ka gudbeen aanu maraynana garab walaalnimo mid toholnimo mid saaxiibnimo mid dhaqan wadaag mid taariikh wadaag inta boogaade uga fadhina Mustafa Cagjar mala magaca reer isaaq buu isaaq ismooday horta ha loogu noqdo ha loo sheego inuu wiil ugaadeena kabla laxa daarood Ismaaciila uu yahay dhulbahanta iyo ugaadeen waxa ka dhaxeeyana waxaanu ka hadlay inay ka balaaran tahay dhulbahanta dawlad deegaan buu ka yahay shirkalaan ku qabsanaynaa kuwa kale ku qabsanaynaa waanu tagaynaa wixii naga dhaxeeyayna Mustafa iyo tiimkiisa kuma burburayso ma burburinayaan haddaan yara taabto tuhun yeerida Cali Khaliif oo jigjigaa baa jiray Cali Khaliif 3 casho ayuu hotel caga weyn u deganaa jigjiga ku xanuunsanay fudbeysan baa ku dhacay baa leeyay ma tag iyo shuban daryeel muu helin dhakhtar lama geynin halkiiba ku dhintay meedkiisa ambalaas laga qaaday dhakhtar baa la geeyay COVID-19 baa ku dhacay oo Cali u dhintay baa leeyay ragga dawlad deegaanka metelaya ee Cali Khaliif COVID-19 baa ku dhacay oo uu dhintay ee bacda noogu soo xidhay qaar kamid ah أنا الله الله كوري هوتيل عقوي على خليف قليل بكو حنوسنيه قبل بان تابع لا سو hadlay علي u taga kuwi ba waxay leeyihiin corona virus ba ku dhacay anaga la soconay hada dhakhtarkiisi markii food boysinku ku dhacay hoteelka ugu tagay daawooyinka siinaya baa cod laga hayeen على خليف قليل aan COVID-19 ku dhicin tuhun geerida على خليفة oo isa soo tiriyay oo xoog lahaa oo xagga dhulbaantay garaacan cagaar cali kadamay oo garaacan cagaar cali warnimanka ogaadeen walaalihii dawlad deegaanka dagaalkii qayaad iyo bahar samay ayay kaalin xal ka geysteen arrinta waxba yaa la buunbuun cali tiisi waa u timid tiisi baa dhamaatay faraha laga qaado arrinta xalay dawlad deegaanka Mustafa Cagjar iyo tiimkiisu ka hadleen waxay xoojinaysaa oo si awoodeynaysaa tuhunkii geeridii Cali Khaliif Qaleyn inaanu COVID-19 ku dhicin COVID-19 u dhiman ana ku dhaaranaya 114 quraanka على خليف مشكي لو دلay ama mid Itoobiya ka yimaada ha ahaado Itoobiya loo ognahay hogaamiye Soomaaliyeed meesha ka joogto ama mid Soomaaliland ka dhex fushatay iyo Musabbixi ha noqdo jigjigaan على خليف horta mission labada dhinac ka yimi oo la soo maleegay baa lagu tiray Mustafa Cagjar dushaada lagu tiray hadda taad sheegaysaa lahayd corona virus baa ku dhacayna cali ma geeyeen 3 casho inta ku dhex xanuusto qol hotel oo dalkiisa iyo dawladdiisa iyo walaalihii ehelkiisa uu la joogo hadhowna meedkiisa baa lagu soo xidho taana darajo ku noqon maysiiyay waxaan uga socdaa hadal badan haan ma buuxshay ugaadeen walaalahayo tolkayo oo inta aan sheegayba naga dhaxayso waxaan uga fadhinaa xaal marin dayid raali gelin wixii Mustafa Cagjar sameeyay sida aan imika u kala qaaday ee ugu kala dhigay labo ee aan Mustafa gooni uga dhigay ugaadeen gooni uga dhigay ficilkeedii ka leedahay raba hadii aad ka hadli weydaan oo ka aamustaan ugaadeenoo inta aan idin soo sheego abaalaba way ku leenahay hadii reer Soomaaliyeed ama reer daarooda aan abaal ku leenahay maanta idinka abaal idin ku leenahay hadii aad ka aamustaan oo arrinta Mustafa Cagjar ee aad aragtaan in dawlad deegaankii uu ku shaqaysanayo Musabbixi oo gacanta Musabbixi ku jirto oo nalagu dhibaateynayo nalagu dibindabeynayo waxaan nageeyin oo aan naga kiin qaban oo aan naashareed ku sameyn aad maanta nagu sameynaysaan ugaadeerow raali gelin ka bixiya oo Mustafa qabta oo halkii aanu idin ku jirnay halkeedii waxaan ku bogsano eragaas biya hadalada ilaa shalay nagu socday ayaanu idin ka fadhinaa oo raali gelina waa ka hadli wadano waa musteen tala ugaadeen oo aad ku wada socotaan ayay noo noqonaysaa oo hadda inoo bilaabmaysaa inaga iyo idinka ficiltankeena taasaan kale yahay waxa weeyaan gobol ciifta waa la arki jiray mise waa leeyahay dhulbahanta marxalado badan uu marayo kuma sii jiri doono mana ahaan doono maalina fogeyn
dheerayn cagiisu ku istaagaya uu ka macna iyo magac iyo miisaan badnaan doona kuwa nagu hareeraysanay imika nagu dhibaateynaya maamuladooda iyo wixii aanu wada samaysanay wada dhalashadii kuwa nagu dhibaateynaya waanu ka nolol iyo maamul iyo system wanaagsanaan doonaa maalina fogeyn cagahayagana waa ku istaageynaa Mustafa Cagjar marada ka dhacday wuxuuna u sii eegyahay qorax casar joogta nin galbanaya oo socdo oo aan sii joogin ayuu Mustafa u eegyahay Mustafa hadaad gabar Sacad Muuse oo aad qabto ku raali gelisay wixii shalay isimadii ama dhaqankii ama reerkii dhulbahantee ballaadhnaa inaan ku tiraahdo hadaa seediyada ku raali gelisay ugaadeen badane tolkayagii ballaadhnaa ayaanu raali gelin ka sugaynaa laba mid bay noqonaysaa ama talo ugaadeen bay noqonaysaa yaday kugu raacayaan way musayaan ama adiga iyo ugaadeenada fudud adiga iyo kablala xadiga fudud adiga iyo daarood adiga fudud barta lagaaga sacabatumay ee lagaaga gacmahaadiyay ee Axmed Shide iyo tiimkiisa ah mu'aamarada laga soo xiray ayaad u baxaysaa iyo aadaysaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxay tani sii xoojinaysaa wax leeyahay ninka maqan hadal hayntiisu waa ninka jooga maqnaantiisa Mustafa Cagjar oo miisaanka cabdi ilay noogu fadhiyay ee magac ahaan ku fadhiyay ee miisaan ahaan ku fadhiyay ee dadkiisa ugu kala xisaabsanaayeen iyo awoodii dawlad deegaanka reerku ku lahaa xilliga cabdi ilay joogay inta joogtay baad noo cadays insha Allah waan rajeynayaa inuu soo baxo cabdi ilayna jigjigana sideedu ku soo noqoto jigjiga Hargeysa